أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن قد السلام دمان أصحابتي walaalaha channelka dhaqaaq ad dhaxashide soo dhawaada muuqaal cusub maalinimo cusub ilaahay mahad leh mar kale hawada nagu kulmiyey haddii aadan subscribe-ka channelkan hore u saaranin waxaan ku leeyahay safarkeena wuu dheeryahay haddaa ka qayb qaadan kartid soo dhawow oo kusoo dhaweyneynaa saxidaada soo qaado adoo safarka muujinaysid walaalahayga channelka dhaqaaq ad dhaxashid xidigaha channelka waqti walba isbood garaya isoo duceeyo waa mahadsantihiin walaalayaal jazaakum allahu khayran annagoo isku duuban ayaan guul gaari karnaa hool ayaa noo taalo markaan leeyahay macnaha in ay sahal tahay dada u malaynayo laakiin hool aad u weyn sababtoo waxyaabahan socdo haddii aanan la hor istaagin oo dad kasoo horjeedo aanan la helin wixii xalay waad maqlayseen yani muxuu ahaay dalaq dam wixii inay maanta cashir kala noqdeenoo niman waaweyn inaaga waaweyn inay macnaha ay soo qaadaanoo hadda hadal caadi ahoo hirgale uu noqdo waxay iyadana raadinaysay intaas ayay ahayd haddii marka waxaasoo kaleenta aanan la hor istaagin oo dadkaasoo kale aan la dhihin waxaa wadiin naga joojiya wallaahi waxba wixii kasii daran ayaa lasii galaa tiktok ayaa yimid muxuu ahaaye barahan bulshada soomaalidii meel kaleento oo macnaha focuskoodii iyo danahoodii iyo shaqadoodii iyo macnaha howlahoodii oo dhan way usoo gabeen war waa laga shaqaystaa dad badanaa ka shaqaysta barahan bulshada yacni qaab darada ee maanta ay soomaali ay u isticmaalayso subxaana allah wancuudu billah walaalayaalow waxaan ilaahay ka baryaa inuu ummaddan ilaahay macnaha u gargaaro wallah waa lasii baaba'oyaa waa lasii baadiyooboyaa meel xunaa lagu sii socdaa marka walaalayaal waxaan ka codsanaa muuqaaladan aan soo geliyo inaad sheergaraysaan insha allah meel dheer gaarsiiya liketa meel dheer gaarsiinaysaa si aan anagoo isku duuban waxaan aan dhinac uga soo jeedsano caruuraa noo soo korayso dhallinyaraa noo korayso ilmo kalaa maxuu ahaay yar yar oo hadhow inay isticmaalaan ay bilaabanaysaa barahan bulshada waxaan marka ay soomaalida niman waaweyn inaaga waaweyn 24 saac ay caado ka dhiganayiin waa inaan haddii waalidiin aan nahay wallahi si isku duuban aan uga soo horjeesanaa iyo macal dhallinyarada inta kheyrka qabta ee wanaagga jecel dadka igu xiran badankood waa dhallinyaro sidaas daraaddeed aan isku duubnaano aan ka hortagno waxaan aan xumaantaan reebno labadan qofood aa u jeediin ayaan rabaa maanta insha allah inaan muuqaalkan aan uga hadlo wax aan ku arkay oo aad u xun aan reer tiktok mii horena oo idinku sheegay markay youtube-ka yimaadiin kadib aan arkaa mararka qaarkeedna inaan arkinaaba laga yaabaa walaalaha iyagoo iisoo sheergareeyeen oo isoo gaarsiiyeen yaa hoolahayga ay fara badan yihiinoo markaas qofka haddii dana fara badan uu leeyahay uu burinaayo wax badan ma haleelaayo dib danbaa laga yidhaha niciima waa kuusoo sheergareeyey ma arkin miya marka barnaamijkan shalay galab bay ahayd mise saakay subaxii waqti hore muxuu ahay uu isoo gaaray yaan arkay waan yaabay aadan u tacajabay gabadhan aa u jeediin sow ma aha gabadhii maalin dhoweed baraha bulshada buuqeeda uu ka kacsanaa sahraa la yidhaahaa la dhahayay oo ninka uu ka dhex mehersanayey youtube dhexdiisa ninkii cabdiraxmaan la dhahayay kadibna tol iyo qabiil iyo ehel iyo walaalo ay yeelatay oo loo soo buuxsamoo la yidhi muxuu ahaay annagay naga dhalatay annagay saa naga tahay waxa maanta ay samaynayso markii ay samaynayso walaalayaalow ummaddii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddii aan nahay wuxuu ilaahay nagu doortay waa inaan xumaantiina iska reebnaa wanaagina aan isfarnaa haddii qofkan waxaan uu kusii socdo cid sokeeyo oo ceshito yacni aan la arkaynin waa dhibaato ninkan ck ah iyo iyada yaa muuqaal life ah iyay tiktok ay kusoo duubayiin waxa ka dhexdhacaayo subxaan allah asagana uma wanaagsan iyadan uma wanaagsan bulshadii soomaaliyeed uma wanaagsano dad islaam ahoo adduunka laga daawanaayo muxuu ahaay walaalayaalo waxa qaarkeed yaaqay wax xun waaye aan diin iyo dhaqan iyo meelay ku aroorta aan lahayn ilmo yar yar ma ah ck waa nin weyn wixii hadda ka dambeeya macnaha waqti badanaa dhaafay waqti badanaa dhaafay qofka markii يعني عمر النبي وحال قلت الماما لحدا سنة صلى الله عليه وسلم معنا إلا لحدا يسدح قال لي
qofka 65 sano wuxuu noqonaa beeshin wadamadan hadda galbeedku aan joogno qofka 65 uu beeshin ku qaata ka hor qofkii markaas ma shaqayste ama muxuu ahaay shaqo naceeb ama xanuunsan hore uu qaadan kara laakiin yani qofkii shaqaysanaya xataa 70 ku gaarsiin kara bal 70kii aan dhaano qofkii macnaha 70 sano macnaha kala bar siikay kor u dhaaf 40 jir haduu kor u dhaafin dhalinyarnimo iyo maanta ilmi iyo in macnaha uu dhalinyareeyo ayuu la soo joogsaday halkan naagta iyadana sidoo kale waa naag weyn carabkeeda afka markay kala qaado dalqada la arkaa dalqada ha xishoodkii dhamaaday xishood male subhanallah sharaf isuma hayso qiimo isuma hayso nin habeenay la saarta tiktokaas tiktokiya wuxuu ku noqday muqaddaraad macnaha waxa isiri ilma kama naxda miya ma shaqaysata miya wax ma barata miya ani waxa ma leen jir marka hor Kenya inay joogtay UK ay joogtaa leeyahay waxa ma leen jir Carabaha iyo Kenya dhulkaas dadka joogeenay UK ay joogtaa UK galbeedkii waa dadku waa la kala carara waa in la shaqaystaa waa in wax la bartaa waa in wax la qabsadaa tiktokaasi 24 saac saaranto maxaad moodaa muqaddaraad amal macnaha balgudeedii oo noqday asagina wuu ka daran yahay macnaha youtube oo u badnaan jira had intuu badan CK ilma yar ma tihid CK macnaha nin weyn aad tahay gabar kasta inaad sanad kasta aad la soo joogsatid oo tiraahid sharaftaadan ku cayaara sumcadan ka dila wallahi CK si rasmi ah hadii loo sii fiirsado gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo sumcadooda ayuu bahdilaa gabadhi shiiqada aheedoo sidoo gaanta uu sumcadii sharafta youtube siday uga carartay u maqanta gabdha kale meeqo mid kasto macnaha Mareykanka markuu tagay gabadhii waxa muxuu ahaa wuxuu sidoo gaanta uu ku sameeyay ay gabar macnaha barahan bulshada uu ku helo uma fiirinayo xataa gabadhaada waxa ma la rabi lahayd naagtaada ma la rabi lahayd walaasha ma la rabi lahayd waxaasoo dhan uma fiirinayo على الدول هري وحكا بلعبها سيدو سمعت الشرفته وقدلي لها والله عذو دمر نين كان هادي سيل قار هانت اللوغو فيرنين سيكي شرفت دمر إنو كو عيارو براح بلشد ساسو وجرا سببتو نين انت عليك او ما انت يوتيوب كا يوحا وقبانا ماهي شقق لانتو انت عن كبحسن لهين نين واكي حوقيس يديدكيس معناها دادالو nin waa inta aanu kala markuu yahay nin aabo oo maskaxda aan sabool ka ahayn lacag youtube ka laga diyaariyaa la diyaarina lacag haysta waa safra war noocaas ma ninka markuu soo weynaado soo qangaaro waa inuu aabanimada isu diyaariya da'dan markuu maraayo 40 konton uu sii dhawaanayeen roolkii awownimo waa inuu isu diyaariyo oo ilmihii dhali lahaayeen sidoo macnaha u gudan lahaa roolkii awownimo inaad maanta dhalinyarnimo u soo noqotid gabadhii baraha bulshada joogtaba aad macnaha ii cayaar gurbaanu utuma walaalayaal waxyaabo laga yaabo wallahi aad looga yaaqsoodo waa qof walbo inuu aad uga hadla arrintan oo laga hortaga eeta milyan qofooda ku xiran waxaas wax la mid marka ninkan waxa looga dayanayo dadkaas ay ka fiirsanayeen maxay noqon karaan walaalayaal dadkan horan waa idinku sheegay asaga iyo dirisli iyo macnaha meel cidlo ahoo aan waxna ma aragta dadka bulshada wax u taraay aan ahayn waxay isaga qaateen meel cidle sidaas daraadeed dhalinyarada haddii ay sii wasaqaynayeen nimankan doobnimadii intay ku weynaadeen yani waa la xaroodaa waa la guursadaa waa idab markaas waad yeelanaysaa nin naag qabo naagtiisii ay macnaha waqti ay isla qaadanayeen oo gurigiisa ilmihiisa u galaayo u baxaayo danihiisa iyo shaqadiisa wadanayo waxaan ma sameyn lahaa bal waa idin sii dayna walaalayaal codkan kixira mustikow gabar u tumaa wuxuu dhahaa iideen waxaas wax ka daranay ku sameeyaan muxuu ahaa tiktok haddii la iska daawado la yiraahdo waxaan lagama soo hadlayo oo la yiraahdo muxuu ahaa qof kale ka hadli doono yaa waa cid ka hadlayso dadkan waa inaan ka hortagnaa anagoo isku duubno oo aan yiraaha fadhiista walaalayaal dadkan in dhulka la dhigay u baahan yihiin dhiga dhulka ihaanada iyo sumcad darrada iyo diinka baxa iyo macnaha فسق فتنة بلايا فاحشة 24 ساعة سو gudbinayin wallahi inaan loo adkeysan karin bal naagtan ninkan wixii uu ku sameeyanayo birdada yeelanaysa dadkeedii had ninkan wuxuu dhahaa ii cayaar miisku u garaaca wuxuu dhahaa ima anfacad inaa garbaha ka dheeshid xabadka ka dheel naasaha ka soo dheel waxa uu ku sameynayo wallahi sumcad darrada sharaf darrada qiimaheedii garan weysi markaas la yiri
sidaan raban kaaga samaysana habeenba ninay afkeeda u kala ballaarisaa ay taaka laba taako ay afka ka dhigtaa biridadaa dhahaayo gabadheenna maxaa saan loo yeeli baraha bulshada dhexdeeda lagu mehersada had koor waa ka warqabteen oo nin yiri hawaanba waa ku qabaa iyadoo isu alalaasayso afkeeda kala qaadayso ruuxan yaa dhalay oo soo koday subxaan allah wallaahi saanoo kale akhlaaq darro waa aadaab xumo waa macnaha garashadii iyo garaadkii iyo diintii iyo wixii oo dhanaa meesha ka baxay inay naftoodii dahiraana zakiyayaan dhanaa meesha ka baxday yacni qad aflaxa man zakaaha waqad qaaba man dasaaha uu ilaahay yiri macnaha sharaf ma rabaan qiimo ma rabaan wanaag ma rabaan mar haddii aadana ummaddii wallaahi sharafta iyo ciziga waxaa lagu yeeshaa ku xirnaanta ilaahay iyo in wax alla uu necib yaho dhan laga dheeraado walaalayaalow dadkan waxa ay samaynayeen anshax darrada oo akhlaaq xumada oo saboolnimada sabool dadka waxay yaqaaniin in lacag la'aan dadka ay ku dhacdo maskaxday sabool ka yihiin laa walaawa bal ila daawada waa u jeedin walaalayaal waxa ka dhacaya meeshaas wuxuu ninkan ku samaynayo wuxuu leeyahay kooga horo codka waan ka xiray sababta uga xiray waxay tahay inaa indhihiina ku daawatiin oo aa idin tuso haddii waxaan laga aamuso inta in la eg macnaha laga aamusnaan karaa haddii laga aamusose xawaaraha ay ku socoto maalin walbaba wax cusub qofkii qof yacni mid walba wuu isku soo dayaayo ninkan bugu keenay adigana keen ck dhalinyarada waa wuxuu ku cayaarayo oo soo korayso ninka markuu intaan la eg yahay waa inuu subxaan allah aqoonna lahaada hadda maxaa xirfad ahoo ck hadda uu leeyahy xirfad male weligiis waxaasaan bartay asoo dhahaaya cidna lama soo horjoogsanin haddaan wax bartaa ma laha yaaqay xirfad samaysa yaaqay ck saan kuma anfacayso wuxuu indhihiisa arag wuxuu ka samaynaya indhah xabadka ii lux naasaha ii lux yacni ima anfacdou yiri waa inaa ii ciyaartaa fadhigay ku cayaartay wuxuu yiri fadhigii ima anfaco waa inaa joogsataa iyadina akhlaaq ma lahan iyo anshax iyo aadaabe way istaagtay dhinacaasay aaday waa u leeloysaa sidaan ii sameeyaa la yiri waa wax ay isla cayaaraan oo tiktoka dhexdiisa oo haddii qofka markaas waan kaa raysaas ii sameey waa waxa lagu caayo muxuu ahaay madaxda waa waxa lagu caayo gobollada waa shuyuuqda lagu caayo xataa ninkii maalin dhoweed diinta macnaha uu dhahayo waa inaad qaladaad diinta ii sheegtaa ilaa heerkaasay gaarayiin niman waaweyn waa qaar cimaamad wataa xataa ku jiro oo usoo shaqo tago oo inay nuucaan ay dumarkii ay la sameeyaan marka ckyow saan sharaf kuuma noqonayso wax wanaagsan kuuma noqonayo adiga iyo naagtan aad baad akhlaaq darre iyo wax xun aad bulshadii ugu soo gudbinoysiin cid kastoo tiktoka macnaha waxaan wax lamid kusoo gudbiyo walaalayaal isoo gaarsiiya anaa halkan anaa gambarkooda ku fadhiisinayo insha allah ani tiktok ma lihi laakiin telefoonkayga baraha bulshada halkan wuu yaalaa isoo gaarsiiya anaa gambarkooda ku fadhiisinayo kabtay gishtaan la gashanayo wallahan looga aamusayn loogana heraynin xishood darradan iyo sharaf xumadan iyo akhlaaq la'aantan neeshinkay nooga dheelooyin oo waxbaan isla wadaagnaa oo soomaalinimay nala wadaagaan markaasay wax subxaan allah waalidkoodii waalidkii dhalay aysan garanaynin ayay halkan ay la soo joogsanayeen wuxuu leeyahay sidaa u jeedeen ima anfacdo macnaha garabka inaa ka dheeshid xabadka waa inaa ka dheesha waa inaad saan u dheesha waa inaad sii jeesataa markaas iyadana ay raalli ku tahay ay afka intay laba taaka ay kala qaado iyo wixii oo dhan ay samaynaysaa life kale oo noloshaan lahayn ma lahan miyaa qofkaan ilmo ma lahan miyaa biri soo koraayo waxaan ka daawanaa mustaqbal ma lahan miyaa oo macnaha mustaqbalkeedii intaanuu noqday yaaqi waa la xishoodaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'tu yiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi gabadhan war dadkii tol iyo ehel u lahoo biri u soo qaylin doono naagtan la hadla oo wax u sheega naag weynwa ilmo ma ah sidaasay afkeeda 24 saac ay ugu kala ballaarisaa baraha bulshada wax ceshto oo yiraaho isku xishow malahan miya ilmay leedaha la yiri naag weynwa haddana waa kaasa muqaddaraad yani qof tiktok ya wuxuu u noqday balwadii muqaddaraadka jirkeeda iyo dhiigeeda iyo dhuxeed uu ku shaqeyn lahaa wax sumcad wallahi laa sumca walaa sharaf walaa xishood walaa qiimo wax dan oo ay ka leedahay intaas oo dhan ma jirto habeenba ninay nuucan ay u samaysaa foolxumo ka weyn ma jirto garashadii ka tagtay garaadkii ka tagtay akhlaaqadii ka tagtay anshaxii ka tagtay aadaabtii ka tagtay isma dhaamaan labadooda ninkan iyada waxaan ku sameynayo muxuu ahay ninkan bahal waa macnaha ninka bahal waa hilib
معناها إله وكون حارس الشيخ تفسير كنوع أقرين جرا عيري نينك وعيري ومكلال شامباي أو هيلب لوكعيو أو هرديسو أو هيلب لوكعيو هيلبكي أساقها لوكعي هدي أي ويسا حتى مكلاشة شامباي ده وحي اسكو دايسا إني هيلب كلا راجس سيداس درادد هي عاد راجس بأسي وما باهن إن معناها أسو سريرتيسي كفاقيو سريرتيسي أكتالو براها برشد ميد إنو أسوه قلو wixii la rabo uga dhamaysan karo nin marka habeen kastaba gabar hor leh waxaan ku sameeynayo goormo guur u baahana u ramoona goormo guur u baahana u ramoona marbiyo waxa waaye banaanka hele barida wax fara badan oo laga bagto waxaan wuxuu u maleynayaa marka inay mustaqbal u noqonayso waxaan wuxuu u maleynayaa inay sharaf u tahay youtube kan bariya la weyn karaa maxaa cunay maxaa ku shaqaysanay waxa waaye fursadda inta ay ku ag taagan tahay yaa cizigaada iyo sharaftaadana la ilaashtaa mustaqbalna la samaystaa wax barasho iyo xirfadna lala yimaadaa si aad roolkii aabbaha uga soo gudubtid aabbahan oo kaleento siikayo kale markuu aabba noqdo asagiyaa maskaxda saboolka intee in la eg ilmo oo wax kusoo saa'idin karaa inuu wax baro macnaha ilmaha wax ay baranayeen adaa la rabaa inaa bartid maxaa bare duuniyan iyo diiniyan iyo maadiyan labadiba laa walaa ka tahay ma ka dhisnid maxaa bare waa marka cunugaas kaas ilmihiisiyaa hadhow dadku uu kusoo dhexdayna yacni waa in laga hortagaa la yidhaha ninkanoo kaleento wax isku fal nin weynaa tahay macnaha bulshadii haddii ay yacni ku doorteen oo ku taageereen laguguma taageerin wasaq kasta iyo faaxisho kasta iyo xumaan kasta inaad macnaha aad bulshadii aad usoo gudbisid wallahi qiimahaada u dhaca waata qiimo dhacaysaa awalba hadda sidii hore ma tihid ummadda markii aysan ku garanaynin sidaa aheed ma tihid hadda wixii hadda ka dambeeyane wixii xumaanoo nuucaanoo kaloo aan aragno aniga iyo gruubkayga janalka dhaqaaq aad dhaxashide waynaga go'an tahay inaan dhehayno jooji waxaa haysid ee reeb cid kaleento maanta laga sugaayo oo la dhahaayo qofkaasa kasoo hadli doono ma jirtaa ma jirto anagaa afka furanayno gabadhan afka weyn oo afka dalaaqadeeda ay 3 mitir taho ilaa dalqadeeda la arkaayane biri adoo oynaysidaa lagu arkaa saas uma malaynayni muxuu ahaaye muuqaala lagaa keena waa lagu soo duuba waxa waaye wax kasta reediya u tahay nin kasta raalli u tahay maxaa sharaf ahoo kuu taal maxaa gabdhahaadii iyo wiilashaadii iyo haddaa ilmo leedahay aa u reebatay adduunkan waa laga tagaa maxaa reebatay maxaase horumarsatay maxaa reebatay maxaa horumarsatay maxaase hadda ku dhex noosha walaalayaalow wax barta qalinka qaata qeyrkiin aad dhaaftiine qurbihii aad ku soo aruurteen wax aad macnaha ka istafiideenna ma jirto maxaa ka istafiideen dadka idinla facay maanta cirkaasay kasoo dejinooyin teknolojigii wax walba ay macnaha ay aqoontooda ay gaarsiisan tahay okay guryay leeyihin dad degan waa dad roolka aabbaha kasoo baxaya waa roolka hooyada kasoo baxaya waa haye maskaxday saboolka yihiin labadoodiba isma dhaamaan iyadii ma dhehaysa idhaaf niyow naasihayga ma raba inaan kaaga cayaarsiiyo asagine wuu ku sii wadaa siikay il gaar ahaaneed ha lagu lahaado wallaahi gabdhaha soomaaliyeed inta sumcadda uu ka dilay maa cadadnaawo markii ay dhallinyarada kaleento ee nimanka ay kusoo dhagaan ay qabsadaan afkaasoo furtaa wuxuu yidhaa ani hooyaan jeclahay ani dumarka waa jeclahay ani kan waa jeclahay warkaasoo dhan waa lasoo afjaraa waxaa lagu soo afjaraa gabdhaha haddii aad jeceshahay hooye haddii aad jeceshahay haddii aad dumarka aad unaxaysid waay sumcaddooda aa u bahdishaa ilaan waxaan way duubmeen hadda halkaanay galeen gabadhan biri mustaqbal haddii lacala ayba dan ka leedahay yay yeelan kartaa haddaysan mustaqbal dan ka laheenna ilmay dhasho ilmaheeda waxaanay u heraayiin acuudu billahi min ashaytaan rajiim sharaf la'aan waa cizo la'aan waa qiimo la'aan waa waxa waaye markay obses ay ku noqdaan nimankoo kale waa nuucan gabadhan waxbaa ka qaldan nin kasta nuucaanay carabkeeda ay ugu taagtaa nin kasta afkeeda dadku kala qaadaa wax aan qosol lahayn xataa way ku qosashaa oo macnaha ma aqaani wixii si ka wallaahi waxaan dhihi lahaa orodoo iska gaaro isbaar nuucan normaali kuma tihid wallahi nuucan normaali ku ahayn andhowaa dhibaato iyo xasuus la'aan iyo waxyaabo fara badan ay jirkaada ay kusoo degdegayihiin 24 saac qofka markuu nuucan oo kaleento uu ku dhaqmaayo shareecada islaamka dhinac uu ka maraayo nuqdo madoobaa jirkiisa mar walba maskaxdiisa iyo qalbigiisa ku samaysmaa quluubta ku madoobaanayso quluubta ayaa ku madoobaanayso siikayna waxaan leenahay nin weynaa tahee
ilmaha ismoodin dhalinyaraha ismoodin dhalinyarada kaleentan wadadan khaldan ee aad u bilaabaysid ha ku wadine muxuu ahaay ka daa nasiixada koowaad aan kusoo diraynaa taas wixii hadda ka dambeeya waxaan haddii ay sii socdaan wallaahi aniga iyo inta ila midka ahoo yacni diidan in dhalinyarada iyo ilmaha ay soo korinayiin role model dadkanoo kale ay u noqdaan waan ka hortegaynaa annagoo isku tuuba raalina kuma noqonayno waan iska kaa qabanaynaa ha maxaa jiro ii niiki gurbaankaanaan kuu tuma xabadka garbaha iguma filno naasahaan u baahanahay mayaal laheed adigoo meesha taagan in walaasha wiil kaleenta uu saas yeelo wax walba waxaa laga soo qaadaa gabadhayda ma u rabi lahaa walaashay ma u rabi lahaa hooyaday ma u rabi lahaa abarirtay ma u rabi lahaa waxaa dadkaada aad la nicib tahayn waa laga ilaaliyaa gabdhaha kalenta haddii iyada hor ay tahay xataa afka ay ku wado orod iga leexaa la yidhaha subxaan allah aawe nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam muxuu ahaay horay ahayd naagtii ku dhegayso qamiiskiisa sidii aanta u jeejeexaysa wuxuu yidhaha ilaahayaan kaa magan galaa dhinac iga leh marka baraha bulshada si kasta wax looga soo jeediyo oo wax loo soo gudbiyo oo ummadda loola wadaago ayaa farada ka batay laakiin maskax maran maxay soo gudbinaysaa oo sabool ah waxna ma soo gudbinaysa sababto qofka wax uu bartina ma laha bes in dadow owlkii horeba youtube-ka si kay waxba kuma soo gudbin jirin wuxuu soo gudbin jiray inuu qof kale hadalkiisa uu soo qaato kadibna asoon hadlin haddana ila arka qofka kale xataa reaction markii laga soo qaadaayo oo aad rabto inaad ka bixisid waa inaad analyze garayn kartid keliya waxaan arki jiraa soo dhahayo waa layga maseersan yahay waa layga waxaysan yahay asaga iyo dirisle cabdibo wax ay baraha bulshada ku haayaan ma jirto doobnimadii intay ku weynaadeenay gabdhihii soomaaliyeed ay ku cayaarayeen dirislena noocaas u ahaa sidoo intuu gabdhaha ugu cayaarayay laba gabdhood oo kenya uu aad ugu bahdilo isku kala bedelaaya subxaan allah wa nacuudu billah ororda wax isku falanimo waa inaad tiina konton jiree guursada oo guri dego oo aabbayaal noqda intaas iyo nabadgelyo waa halku dhigani iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaada qalinka khayrkaa dhaaftid